gudoomiyaha hay'adda caymiska qaranka Soomaaliland Saleebaan Cawad Bukhari iyo agaasimaha guud ee hay'addaasi Cabdiraxmaan Muuse iyo xubno kamid ah madaxda waaxyaha hay'addaasi oo safar shaqo ku yimid magaalada Berbera ayaa kulamo kala duwan la qaatay oo lagu dardargelinay adeegyada caymiska. Gudoomiyaha gobolka Saaxil maareeyaha hay'adda dekedaha Soomaaliland maareeyaha ku-xigeenka haamaha shidaalka Berbera iyo madaxda shirkadda gacanta ku haysa dekeda Berbera ee DP World waxaanay dhammaantoodba ka wada hadleen sidii si wadajir la isaga kaashan lahaa horumarinta caymiska caymiska gaadiidka caafimaadka iyo badqabka shaqaalaha u nugul khataraha sida haamaha kaydka shidaalka iyo wixii la mid ah. maareeyaha hay'adda dekedaha Soomaaliland Siciid Xasan Cabdilaahi gudoomiyaha gobolka Saaxil oo iyaguna si ballaaran u soo dhaweeyay caymiska qaranka Soomaaliland ayaa sheegay in ay gobolka Saaxil ka dhaqaajin doonaan shaqadaasi. maanta waxa xafiiska lagu soo booqday gudoomiyaha caymiska agaasimahooda madaxdii kale ee xafiiska run ahaantii waxaan ka wada hadalnay ahmiyadda uu leeyahay caymisku ama insurance maadaama dhib badan ay ka dhacday dalka oo reerihii iyo dadkiiba aanay qaadi karayn laamiyadii ay farabateen baabuurta ay keeneen dhib aad u fara badan iyo dhaawac fara badan xukuumaddu waxay gaadhay inay samayso institutionka caymiska kaasoo ka howlgeli doona si loo gaadiidku u yeelan lahaayeen caymis anaga runtii guud ahaan dekedaydu caymis bay wada leedahay qalabku waayo waxaan ogaanay inaan laga maarmayn maadaama shaqo adag ka socoto dhaawac fara badanna uu ka dhaco haddii ilaahay intii badnayd baa naga badbaadiyey runtii wafdigan waxaan ka wada hadalnay sidii loo dardargelin lahaa wax badanna waan iska weydiinay waana insha Allah taala ku ballanay in shirweyne la isugu yimaado dhammaan cid kastoo khusayso maadaama aafadan accident uu noqday aafo soo noqotay oo fara badan. hay'adda caymiska qaranka oo dhammaan madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland magacaabay oo maanta halkan la jooga gobolka Saaxil runtii waxa weeyaan waxaan hay'ad loo baahnaa oo asiibo madaxweynuhu annaguna waa soo dhaweynaynaa waa la shaqeynaynaa maanta waxaan ilaahay gobolka Saaxil ku soo dhawaada kuleeyda kuwaas barashadii iyo sidoo wada shaqeynahay baynu ka sii wada hadlaynaa waxaan idinku bishaareynaya inaan idin la shaqeyn doono inaan garabkiina taaganahay sida loo magacaabay baahida ay loo qabay awgeed oo arkay madaxweynuhu ayaan anaguna u aragnaa waan idin la shaqeynaynaa. mushkiladaha ugu waaweyn ee gobolka Saaxil ka jira waxa kamid ah gaadiidka horta kamid ah intaasoo gaari baa halka ku dhacaysa intaasoo qof baa ku dhimanaysa hadiya jeer murug badan iyo hawl badan iyo wax badan baa deetana ka bacdi yimaada marka horta anaga gobol ahaan aad iyo aad bay noo anfacaysaa dhinaca gaadiidkana wax fara badan bay ka bedeli doontaa saan rajaynayo. ugu dambeyntii gudoomiyaha hay'adda caymiska qaranka Soomaaliland Saleebaan Cawad Bukhari isagu warbaahinta kula hadlay Berbera waxa uu sheegay inay magaalada u yimaadeen sidii caymiska qaranku uga dhaqaaqi lahaa ma looga hirgelin lahaa magaalada Berbera. waxaan la kulanay maareeyaha dekeda Berbera waxaan la kulanay maamulka DP World waxaan la kulanay gudoomiyaha gobolka waxaan la kulanay haamaha shidaalka iyo gaasta ee private-ka waxaan la kulanay haamaha maxaan ku yiraahdaa shidaalka ee dawladdu leedahay kuwaas oo soo dhaweeyay in laga wada shaqeeyo in la caymiyo agabka u nugul halista ay ka mid yihiin gaadiidka in la caymiyo shaqaalaha caafimaadkooda in la caymiyo waxyaabaha halista oo inay gubtaan sida shidaalka haamaha kala duwan ama private-ka ama kuwa dawladdu ay leedahay taasoo aad looga shaqeeyay nagu soo dhaweeyeen hawshii iyo technical qaabkii loo sameyn lahaana aanu bilaabayno sidoo kale ayay waxa dhinacooda hawsha kaga jira shirkadaha caymiska kuwaas oo u diyaar ah inay shaqada qabtaan waxaanu doonaynaa mashruucaas inuu guuleysto dadka ay ka faa'iideystaan aanu noqon mashruuc un dhaqaale looga iyo sheekadaas uu noqdo mashruuc dadka ummadda danteeda oo halista iyo khatarahana yareeya iyo hadiiba ay halis timaado oo wax halis ay yimaadaan oo naf iyo maal saameynaya cidii loo raaci lahaa haddii ay tahay dhaawac dhimasho iyo hantiba cidii loo raaci lahaa la sameeyo taana dadku aad iyo aad u soo dhaweeyeen. Mubaarak Nirig, Telefishinka Universal, magaalada Berbera.